aniga magacayga waxa la Faysal Ciis Cilmi waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa ilaadii goorma 1960 haye waxaan ka galay dugsiga hoose dugsiga laga Sheekh Bashiir haye standard 4 markaan joogay 1974 ayaa waxa la qoray dugsiga tababarka ciidanka booliska ee Mandheera oo la oran jiray BB Boss Brigade haye halka waxa la geyn jiray caruurta booliska ay dhalaan baa la geyn jiray okay oo aaba booliska waxa la oran jiray BB Boys Boss Brigade haye halkaas aan ugu jiray marka aad fursadaas soo weeshay aniga malcaamada ku jira oo xataa aan waalidkay ogeyn baan intaan cararay ayaa waxaan u tagay gaashaanle sare maxamed cabdiraxmaan oo ka soo jeeday Laascaanood oo markaa haystay police divisionka Hargeysa dabeetana safkii waan galay ninkii wuxuu qoray ciidanka booliska Mandheera la diray anagoo Mandheera ku jira hal sano ayaa nimankii naga weynaa waxay sameeyeen shawre dabeetana goor habeenimo isqadhaxa ayaan xoogaa ka soo baxnay abdaal baan nidhi runtii wax yar baan lahayn baabuur isiisoon ka soo raacnay markaan malayna airportkii hore dushiisa ayaa nin Allah u naxariistay dhintay oo la jiray Cabdi Suulo oo police division ka haystay ayaa naga hor yimid kadibna waxaan la geeyay xarada daraawiishta imka la birmadka booliska magaalada Hargeysa halka markaan joogay hal habeen ayaa Jaan Maxamed Qaalib oo haatan ciidanka booliska wuxuu soo amray in si degdeg ah loo soo qaado xamar la keeno eeljibana la saaray muddo 7 cisho ayaanu ilaa xamar u sii soconay annagoo dhalinyaro ilaa 50 markaan halka tagnay waxaan la geeyay meel college Ferrare oo dekada weyn xamar ka soo horjeeda kadibna markaan ku jiray waxoogaa ayaa Jaan Maxamed Qaalib laga bedelay taliska ciidanka booliska mudukadana Cabdullaahi Maxamuud Xasan ayaa booliska loo dhiibay dabeetana waxaan ugu sheegay Beledweyne tabar baan loo diray adoo cabaar markaan ku jiray halkaas aniga lodkaygii waxa la keenay iskool booliska waxaan lagu bari jiray baarista biyada siibana waa la bari jiray gobol loo jiray gaashaanle Seyrib inay la oran jiray Goore ayaa la bari jiray siiba waxaan ahaa anigu ninka ugu fiicnaa siibadu markaa waxa lagu bari jiray administration lagu bari jiray waxaan ninka ugu fiicnaa xaggan garaacista teebka booliska doonta imtixaan baan laga qaaday waxa la geeyay imtixaanka ragiga le wanka iyo toogay tiriga waxa la kala geeyay saldhiga afartood iyo saldhiga dhexe ayaa loo kala bedelay anigoo saldhiga hodan jooga ayaa waxa la geeyay nin la Maxamed Xasan Allah u naxariisto imika dhintay oo shaqaalaha doonta ninkaas gacanta ugu qabtay ninkii saa la joogay waxa laga dhigay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee Dhuusamaree baa laga dhigay waxa la keenay nin la Maxamed Xaashi oo gaashaanle sare ah kadibna waxa la bedelay taliska ciidanka booliska halka waxa la geeyay nin la Sariig Guto Axmed Jaac Muuse Ilaahay naxariistiisa siiyo oo aabahay kala ahaa oo xafiiska Interpol haystay xafiiska waxa joogay oo kuuka ahaa gaashaanle sare Axmed Jaac madaxu ahaa Saciid Ismaaciil gaashaanle sare Saciid Ismaaciil oo imka jooga Hargeysa oo siyaana ayaa joogay waxa joogay nin kale oo la jiray Allah u naxariistay Qaahira oo imka dhintay